ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta dhagax dhigay laanta socotada booliska soomaaliya oo hoy u noqon doonto askarta u kala socdaali doonta gobolada dalka iyo kuwa tababarada ku jira. dhagax dhigga xaruntan cusub uu maanta dhagax dhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaa ku weeliyey wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareeye guuto sulub axmed fariin. ugu horeyn waxaa munaasabada dhagax dhigga hadal kooban ka jeediyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareeye guuto sulub axmed fariin, waxaana si faahfaahsan uga hadlay shaqada ay qaban doonto laanta socotada booliska soomaaliya, isagoo ku dheeraaday sida ay muhiim ugu tahay hirgelinta xaruntani booliska soomaaliya. ayagana oo aan dibdhis fiican aanu ku samaynay. haddaan warbixin yar aan kaa siiyo xeradan aan maanta aan dhex taagannahay ee noo dhagax dhigaysaan, muddo bil gudaheeda ayaanu waxaan ka samaynay muuqaalkan hadda maanta idinka muuqda ee shaqada fiican ay ka socoto. shaqadaas ama bishaas ka hor waxaa deganaa dad shacaba iyo saraakiil ciidan iyo dad kale oo maaragtay siyaasiyiin intaba isugu jira oo ka shaqeeya maaragtay shaqada dawladda. xeradan muddo dheer oo intii burburkii ahaydba mayna ahayn dhaqangab ay ahayd oo mayna ku shaqaynaynin shaqadii ay lahayd ama wixii loogu talagalay kuma ayna shaqaynaynin. waxay ahayd meel iska burbursan, dadku inteeda badan ay dadweyne ay degeen, inteeda badan ee kalena qayb badan oo ayada ka mid ahaana ay biyuhu fadhiisan jireen. waxaan go'aansanay inaan noolayno oon xeradii dib u soo celinno, ciidanka booliisku baahi badan ay u qabeen awgeed. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo isna munaasabadaasi hadal ka jeediya ayaa kula dardaarmay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka howlgeli doona xaruntan cusub ee maanta laga hirgeliyey magaalada muqdisho. booliska soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, degmooyinka iyo gobollada iyo qaybaha markay kala yimaadaan oo laisku bedelayo ama ciidan guurahayo meel kale u guurahayo, meesha ay ku nasanahayeen oo marka subaxin ay ka bixi jireen ama usbuuc iyo 3 bar waxay joogaanba ay ku gashiimahayeen si ay ugu u aadaan meesha kale oo shaqada qaranka ay kala hayeen. baahida loo qabo waad garan kartaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo saraakiishii guddiga ahaa u xil saaray, baan aad ugu mahadcelinayaa meesha soo gaarsiiyeen oo ah meel aad iyo aad u qurux badan oo maanta aan annaga laftirkanaga haatan la yaabanahay. ugu dambeyntii waxaa munaasabada dhagax dhigga laanta socotada booliska soomaaliya hadal ka jeediyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac, waxauna hoosta ka xariiqay in qof kasta lagu xasuusan doono waxqabadkiisa inta uu shaqada qaranka hayo, isagoo ku booriyey saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka howlgali doonta xaruntan in loogu fadhiyo in ay la yimaadiin waxqabad muuqda. berigii hore ciidanka qalabka sida waxay lahaan jireen meelahan oo kale oo ninka ka imanaya Hargeysa ama Boosaaso ama Kismaayo ka imanaya, waliba ciidamadu berigii hore nin waliba gobolkiisa kama hawlgali jiray, wuxuu tagi jiray meesha ugu shaqeysa qaranka Soomaaliyeed. waxayna ahaan jireen tabaha ama hababka isdhexgalka bulshada uu ku suurto galo. inta nin askariya ee ka yimi meel Soomaaliya ka mid ah ee ku dhaqmay ee ku ilmo dhalay ee degay deegaan kale isagoo askariya, taariikhda aad bay ugu xardhan tahay oo ugu xusan tahay. xasan yuusuf cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.